السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. mahadoodan ilaahay baa iska leh isagana mar walba u mahadnaqaynaa ilaahay ciriiri kasta iyo cudur kasta iyo culays kasta oo dhan ha naga dulqaado. ilaahay bisha ramadaan fadligeeda oo dhan hayna siiyo. ilaahay bisheeda iyo sanado kaloo badan ba caafimaad iyo amal wanaagsan ha nagu gaarsiiyo. aamiin. mar labaad waxaan idin sii qadimayaa ciidukum mubaarak dhammaantiinba meel kastoo joogtaanba ummadda reer Somaliland iyo dadka af Soomaali ku hadla oo dhan waxaan leeyahay ciidukum mubaarak. ilaahay ciideeda amal wanaagsan iyo cibaadaha nagu gaarsiiyo iyo caafimaad. waxaad moodaa baryahan dambe waxaan ka yar daalay qoritaankiyo maxay ahayday laptopkiina markaan sidan mobile sidato qaladaadkaaga iska badanaya marka waxaan salimaad duubtidba cod yar kolba waxa maskaxda ku soo dhaco ayaan jecelahay inaan dadka la wadaago. maanta waxaan jeclaystay inaan la wadaago waxoogaa talooyin ah qof walba sidoo doono ha u arko laakiin anu talooyin baan arkaa caama oo waliba ku socota dhalinyaradeena iyo dhammaantiinba. marka mainly waxay ku socotaa dhalinyarada. waxaan leeyahay dhalinyarada aad ha u dhageysato. jiilkii idinka horeeyay ama generationadii idinka horeeyay ee lodkaygii ahaa ama kuwii aniga iga sii horeeyay ama kuwii iga dambeeyay intii secondary-ga aan soo galay form 1 2 3 4 isku soo gaaray ama wixii ka horeeyay muxuu ahaayay waqti aad u wanaagsan sidaan oo kale maanaan helin. caalamka lamaanaan jaan qaadi karayn. haddana mature baanu ahayn anagoo secondary-ga markaas soo galay oo wax walba waanu ogeyn wax walba waanu kala garanay. idinku dhalinyarada iminkaan sheegaya wixii ka dambeeyay waqtigaygii waxaad la kulanteen waqti aad u wacan. waxaa hesheen waxbarasho muxuu ahaayey iyo teknolojiyadii adduunyada ugu dambeysay. waxaad hesheen waxbarasho idin sahli karta ninka waxbarta isagoo halkiisa jooga Somaliland jooga inuu ka shaqaysan karo. taasna ay fududeysay waxbarashada casriga ah iyo teknolojiyada iyo wadankii oo noqday village ama hal tuulo isku noqday oo qofka imika halkan aan kala hadlaa kiyo jooga qaar muxuu ahaayey adduunyada ugu dambeysa aanu halkan ka wada xiriirino oo imika hadalka aan duubayo markaan soo dhigo minutes buu ku gaarayaa muxuu ahaayey qaaradaha adduunka oo dhan. marka waxaa hesheen waqti aad u wanaagsan oo teknolojiyadu casri tahay oo ninka IT bartaa wuxuu awoodaa inuu networking ama sales marketing uu online kaga shaqeyn karo isagoo Hargeysa ama Burco ama Oodweyne jooga ama maxay ahayd Boorama jooga ama Ceergaabo jooga. muxuu ahaayey waxa uu awoodaa inuu furan karo maadaama dadkii imika wax wada barteen oo dadkii ay isugu jiraan dhakhaatiir lawyero muxuu ahaayey accountants. nin waliba wuxuu awoodaa inuu nolol maalmeedkiisa ka soo saarto isagoo dadka wax baraya. anagu waxaa soo jaanaysan maanan haysan jiilkayagii wadan dhan baa nagu duldumay oo qaarna aanay dugsiyadii dhammaysan intii kalena iyagoo jaamacado 2 sano dhigtay la qaxay. markii la soo qaxayna number aad u yar baa helay inay aqoontoodii sii wataan. markii qurbaha la soo galay halgan kale ayuu dadku bilaabay. waa jiilkaygii waa kuwii aniga igu xigay iyo kuwii ku sii xigay kuwii ka horeeyay. waa 5 jiil weeye. waxa weeyaan kuwii ka baxay 82 83 84 85 86 87 88 iyo 81. intaasi waxay noqotay intii soo qaxday oo qaarna dugsi dhexe iyagoo ku jira ayaa la qaxay, qaar iyagoo dugsi sare ku jira la qaxay, qaarna iyagoo jaamacadaha markaas soo galo sanadkii labaad ama kii koowaad ku jira ayaa la qaxay. markii qurbaha la soo galayna dee halgankii baa halkii laga sii bilaabayo
maxay hayday factor badan baa dadka u diidayay inay halkan waxbarashada ka sii wataan marka qof waliba wuxuu ku qasbanaaday waxbarashadu bal ku dambeysay hadhow marka luqad iyo waxa de wadamadii la yimid luqadooda markaad barato ayaa bal jaamacadii wax geliyay bal horta qutul daruurigii dadkii aad ka timid marka halkan dheer ayaa la galay oo dadkii isla dumay in loo shaqeeyo ayaa noqotay alxamdulillah dhalinyaradaas markaa way dadaaleen wax weyn bay wadankii tareen ilaa hadda aan kula hadlayo dhaqaalaha ugu badan wadankeena soo gala oo xitaa kaba badan ba dhaqaalaha naga soo gala beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka waa lacagta qurba joogtu soo dirto lacagtaasina beri dhow way istaagaysaayo qolyahayagii soo galay 89 ama 88 wixii ka dambeeyay soo galay qurbuhu imika waa konton jiro ama konton bay ku dhow yihiin aduu waa between 40 ilaa 60 baa loo dhaxeeya marka shaqooyinkii adkaaya ee dadku ku jireen way soo koobnaanayaan dadku waxay galayaan pension bay galayaan dadku ma sii shaqeyn karaan sanada gudahood ayay arrinkaasi uu ku dhacayaa oo dadku pension ku wada galayaan oo shaqada ka fadhiisanayaan waayo waxa la gaaraya waqtigii ay shaqada ka fadhiisan lahaayeen kuwii ay dhaleen ay halkan joogayna ma aha qaar laga filayo sidii aan u dadaalay inay u dadaalaan lagama yaabo in wax laga helaba waayo waxay qaateen oo ay yihiinba aba ku xisaabtan iyaga waxay noqdeen oo ay qaateen dhaqankii reer galbeedka marka waxaan uga gol leeyahay waxaasoo dhan waxa weeye inaan xasuusiyo Somaliland halkay ka timid iyo halkay marayso dad badan oo ka xanaaqay baan arkay arrinkaas oo lahaa Somaliland la yiraahdo ma halkay ka timid war wax lagu faano weeye alxamdulillah halkeen maraynay halkeen waxayn markii hore dhibaatadeen ku jirnay dhibaatadii markii dambe la galay ee aynu iska xoreynay cadowgiina haystay cadow buu ahaa dhibaatadii la galay inta la kay dagaaladii dilkii dhicii muxuu ahaayay wixii oo dhan baynu ka soo gudubnay wadan dhan oo dhismay oo dumay ayaan dhisanay marka dad baan arkay lahaa maalin dhaweeto aqli ma aha in la soo dhigo inta la soo sawiro magaalada dunsan iyo magaalada dhisantay war waa aqli weeye dadku hadaan nabad jirin waxaan may hagaageen waxna ma dhismeen maamul la mayna yeelaneen madaxweyne mayna yeelaneen baarlamaan wuxuu doono fadhiidka doonaan iska ahaadaan mayna yeelaneen dawlad hoose fadhiidka doontaa iska ahaatay mayna yeelaneen maxay hayday xisbiye qaran si doonaan ha ahaadaan mayna yeelaneen war waxa soo dhan waxay ku yimaadaan nabaduna waa shay ilaahay bixiyo waxa weeyaan waad arkaysaan jaarkeena inagama wanaagsana inagama waan ka nasiib badanahay oo ilaahay baa nabadda inaga inoo keenay muxuu ahaayay inana weyn dadaal ilaahayna uu nala garab qabto marka nabaddu hadaanay jirin intaasoo arday jaamacad kama soo baxeen maanta intaasoo arday iskuulama dhigteen magaranaysa marka in la nisyeelo maaha ujeedada aan ka lahaa hadalkaygan maanta wuxuu ahaa waxaan arkay cabashooyin iyo baaqaq baryahan socday oo waliba lagu soo dhex tuuray 18 May horta sideedaba cabasho oo dhan xalinteeda dastuurka qaranka in loo maro weeye dastuurkeena wax aan ku qeexnayn way yar yihiin haddii cabasho jirto cabashadaasi ha noqoto mid qof ama shakhsi ama mid wadareed dastuurka ay ku yaalin sida loo muxuu ahaayay dariiqa loo maro cabasho kasta hadday tahay mid shakhsi iyo hadday tahay mid muxuu ahaayay bulsho dhanba ya waxa jira nidaam dastuuriyan ah grievance baa jira dastuuriyan ah oo la maro aan soo noqdo ujeedadiisu dhaqamo badan ayaa Somaliland ka jiray ilaa oo la kowsaday runtii waxaan oran karaa way la kowsadeen ilaa markii aynu ku dhawaaqnay la soo muxuu ahaayay la soo noqodkeennii dawladnimada wali cid hore u hadal haysay
ma arag ama hadalkeedu wuu yaraa laakiin imka waxaad moodaa in aad loo wadwado waana sax in la wadwado oo wixii khalad iyo cadaalad darro loo arko in laga wada hadlo sidii loo xalin lahaa oo la maro muxuu ahaay dariiqii saxda ahaa ayaa wanaagsan laakiin maaha in la yidhaa intan aada uga soo horjeeda waxa weeye in lagu xajiimeeyo dowladda markaa jirta dhibaatooyinkan iminka laga cabanayo waa dhibaatooyin soo jireen ah ya muxuu ahaayey waxaana ka mas-uula number 1 shacabkeena ka mas-uula waa shacabku iyagaa dowladda ah shacabku iyagaa dowladda ah waxaa ka mas-uula dowladda shacabka ayaa dowladda doorta dowladda shacabkaa ka mas-uula xukuumaddu waxay tahay xukuumadda innagaa u igmanay inay hawl qaran inoo qabato xukuumad kasta inaanu la xisaabtano waxa weeyaan waa dastuuriyan xaq baynu u leenahay inaanu la xisaabtano laakiin dee walaalayaal in la yidhaahdo dowladdan baa iminka waxaan la timid ama tii hore siiranya waxaan la timid ama tii ina riyaale ama tii muxuu ahaayey cabdiraxmaan allah yarxama ama tii cigaal allah yarxama midna or waxaan waa collectively problemska wuxuu isku urusay si collectively ah ya mas-uuliyadeeda ugu weynna waxaa le shacabka maaha wax cid gaara farta loogu fiiqi karo dowladihii kala dambeeyey waxay dhinac bay iska wada taageen isku wada mid bay ka wada ahaayeen xagga mansabyada iyo mafacyadaba wax isbedelo oo anigu hadda yimid ma jirto waxaan la wareejinayo iyo mansabyadan iyo waxaan la wareejinayo anigu intan Somaliland taagnaaba saas uma arkay wax isbedelo oo ka dhacay ma jirto inta waxaan ku darayaa dowladdan ka hadlayay dowlad waliba waxay martay for whatever reason dowladdii ka horeysay wadadii ay martay mid la mid ah ayuun bay xagga mansabyada iyo wax walba u martaa madaxweyne kasta oo ina soo maray isaga xulanayay cid la shaqeynaysa oo sida saxda ah habina lagu wada ahaa laakiin imka waxaad moodaa in wax dheeraad jiraan okay yes daliilo ma jiri karaan yes daliilo way jiri karaan wayna jiraan wayna soo jireen ilaa 1991 ninka yiraahdo dawladihii hore daliil may lahayn ilaahay iyo dadkiisaba been cad buu u sheegay laakiin sida loo rabo in wax loo xaliyo ayaan ahayn si aan dadku u bogin sidii wanaagsanayd ayaan loo wadin hawshan ma ahayn in nama yaryari oo aan wali naftooda iyo qaranka midna aan waxba tarin intay urursadaan oo waliba qaarna ka been abuuraan inay yiraahdaan baaq baan soo jeedinayna yaa tabcaan adigu wax ma qabsatay marka hore wadankase wax maxaad gelisay bal aniga igan kula hadlaya waxaan ku faano oo badan baan haystaa yaa tabcaan waa halkii gaariyay ilaahay u naxariistay anigu adigan ku xoreeyay baan oran karaa jiilalkayagii adigay ku xoreeyay baan oran karaa ya adaan ku soo dhisay adaan ku soo biiliyay oo ilaa hadda ku soo biiliya oo ilaa hadda ku soo dhisaa oo ilaa hadda jiilkaygii ay yihiin jiilalka qurbaha jooga ugu badan lacagta ugu badan soo dira xoolaha nool livestock ba number 1 ka ahaa wadankeena laakiin lacagta ugu badan qurba joog aan kamid ahay baa soo dira oo ilaa hadda soo dira bal marka hore adigu wax noqo adigu laftaadu wax noqo oo waxa aad baratay ku shaqayso shaqo abuur samee waxay doonto ha noqotay waxa aad baratay qaarkiin baa dhakhaatiir leh for God's sake dhakhaatiir baad leedihiin lawyeraad leedihiin IT masters baad leedihiin accountancy baad leedihiin yaa tabcaaniin annaga way nagu yareed jiilalkayagii way nagu yareed in fail kasta ama waxbarasho kasta nalaga helo laakiin idinku waa leedihiin dhakhtarkii baa leedihiin lawyerkii baa leedihiin engineerkii baa leedihiin
IT masterskii baad leedihiin accountantkii baad leedihiin intaasoo milyan oo business business degree ayaad wada sidataan maxay hayday veterinarygii baa gasheen yacni fiil aydan samaynin oo aydan masters iyo PhD ku haysanin ma jirto markaasaa idinkun laftiinin waxba istarin ummadii waxay idin diratay muxuu ahaayey waqti iyo kharash ba idin geliyey idinkoon waxba tarin ayaad baaq iyo tarorog siyaasadaysan wadaan war idinku wax noqda marka hore haddii aad la jeceshihiin in cid gaari kursiga qabsato war dee xisbiyaan samaysanay xisbiyada ku daba fayla inkastoo xisbiyada laftoodu uu salkoodii noqday qabyaalad haddana qushiye xisbiyada ha galaan war dadaala oo sida dadka u kasban lahaydeen falowgeed qabta golayaasha baarlamaanka gala waxaad baaqiyo u dirtaan oo tidhaahdaan waa in la qabto doorashooyinkii si aad u gashaan waqtigiinii baa la gaadhay si aad u gashaan golayaasha ood xisbiyada madax uga noqotaan gala labadaa gala halkaa ka soo baxa waxaanu qaadanay hab dimuqraadiya waddan wal oo adduunka ka mid ahi wuxuu leeyahay hab ay wax ku doortaan innagu waxaynu dooranay oonu qaadanay habka ugu quruxda badan marka la eego sida wax laisku doordoorto dimuqraadiyad baynu qaadanay malaha in diinta laisku xukumaa ka wanaagsanaan lahayd sanaan u aaminsanahay saasa ka wanaagsanaan lahaydba waxaanoo buuqi magu yimaadeen keena ugu sheeksan unbaa halkaa la dhigi lahaa muxuu ahaayey madaxda laga dhigi lahaa ya ninba ninku ka quraan badan yahay yuu ka diin badan yahay unbaa la dhigi lahaa halkaasoo deedna shareecada islaamkaaba socon lahayd taa ilaahay hayna gaadhsiiyo laakiin iminka waxaanu dooranay multi party system kolba xisbiga soo baxa ayaa waddanka maamula ma aha inay xisbiyadii kale ku doodaan oo yidhaahdaan intaasoo wasiir buu ayuu doortay intaasoo war waa shaqadii madaxweynaha xisbiga soo baxay muxuu soo baxayey muxuu tartamayey muxuu ahaayey wuxuu u guuleysanayey isaga ayaa ka mas-uul ah cidda uu xil u igmanayo 5 sana la jooga ama 6 sano ama 7 sano haday ugu badato madaxweynaha ayaa xaq u leh cidda uu u arkayo in ay hawsha qaranka loo daariyey uu la wadi karayo waana iska caadi in dadkii xisbiga wax gashaday ay maamulku qabtaan marka laga tagi waayo sida caalamka marka dhacdo xubno active ah oo laga maarmi waayo oo madaxweynaha waddanka jooga uu ka maarmi waayo uu u garto inuu la soo galo dawladda uu kala shaqeeyo iyadoo lagu tuhmayo aqoon iyo khibrad Somaliland waa meesha kaliyaata ee marka cid guuleysato isla markaaba la yiraahdo cid baa mansabiyadii wada qaadatay hadda sidaas aynu hayn 29-kii sano u dambeeyayba wax isbedela anu kuma arag madaxweynaha waliba intuu doono ayuu dooranayay isaga awood u lahaa ciduu xilka u dhiibayo cidda uu ka qaadayo ya laakiin baryahan dambe waxaad moodaa in la rabo in social media laga maamulo dawladii taasina wax dhacaya ma aha xisbi wal oo talada ku guuleysay isaga xaq u leh cidda uu igmanayo xeerarka qaranka marka waxaan ku talin lahaa in xisbiyada lagu loolamo oo ay dadka kasbadaan dadka soo jiitaan si ay u helaan ama ku soo baxaan ama ku soo saaraan ama iyaguba ku soo baxaan ama cid ay doonayaan ku soo saaraan deedna marka ay guuleystaan ay iyagu cid ay doonaan ee isla xisbigaas uu ku jira ya 20 qabyaalad nagu saladay 3 xisbiba waa laga helayaa cid walba ya nin waliba marka uu ku guuleysto war dad kasbada oo xisbiyada ku guuleysto oo baarlamaanka ku guuleysto oo cod majority meel walba ku hela dambal hal arko cidda ku tahay maxad hebel masab ugu dhiibtay war reeradan oo aan ognahay baan lahayn ayaan xilba haysan halaga daayo Somaliland wareerka inta ugu badan ee waddankan difaacda sidaan ku arkay social media waa dadka aan xilba reerahoodu aanay ku jirin dawladda
dowladnimadu maaha mansab inaad la doonto kareerkaaga ah. waa in la eegaa qofka wax tari kara ee xilkaa ka soo bixi kara ya oo la eegaa muxuu ummadan uga tagi karaa ee manaafacaad ah. waa inuu lahadaa qof han leh oo hogaamin iyo hal abuur labadaba leh. kol haddii ay xisbiyadii naga noqdeen ay noqon waayeen sidii aynu rabnay oo ay qabyaalad hoosta iyo dushaba ay ka noqdeen, haddana meel looga dhaadhaco oo kale aan arkayo muhiimaddu waxay tahay in bal xisbigii guulaystaa uu ka fuuriyeelo xilalka dadka hanka iyo aqoonta iyo hogaaminta leh 5 sano ay meesha joogaan. ilaan waa tanoo waa la istirinayaa ya bal meesha ha laga wada muuqdo oo dee dadku haba kala badbataanbe laakiin meeshii ha lagu wada jiro oo ha laga wada muuqdo. taasaa malaha noqon lahayd Somaliland tan la wada leeyahay la sheegayo. war wadanku xilalku dadkay wada gaarayaan tolow ma 5 milyan oo qof baa ayaa nin walba xil loo dhiibi karaa. intaa xisbiga iskula jirta ee isdaba socotay soo saartay baa mar walba wada socota. madaxweynahan xaq u leeyahay hadduu xisbiyada kale wax kaga soo diray, laakiin inta la tiriyo in Facebook la wareejiyo maaha reer hebel iyo hebel oraba ma dhici jirin. hore wallahi way jirto dawladda Soomaaliya waa tii la wareejin jiray. tiiriyaal wax badan ba kama sii xasuusto aad ma dhex gali jirin siyaasadda Somaliland, laakiin ilaa dawladda Soomaaliya magacuun baa la wareejinayay. waa reer hebel markaasa kuwa soo qoraya laftooda ayaa marmar u khajila, waayo reero dhan bay soo qoraan liisaskoodii markaasay reero dhan ka tagaan ya iyaga laftoodii baaba dulmi wadaba. marka waxaan uga gol leeyahay xisbigu isaga ayaa ka muxuu ahaayay qolba qofka guuleystaa ka mas'uul cid xilal u dhiibanayo cid doonaha ahaadaan. marka qolada xilalka loo dhiibay lafteeda waxaan oran lahaa iyaga laftooda inuu xilku meerto ku noqdo oo dee la badbedelo, dee si dhiig cusub loogu shubo meesha loo keeno meesha, isla markaana ay u noqoto in halkii uu kala bedelayaa soo gaarsiiyay uu noqdo mid halkaa kasii wadi kara. cabashada dadku yee noqon mid hunguri ah ama dangaara u hadlaya, waa inay noqotaa mid danguud ah oo muxuu ahaayay oo ay dadku ku doodayaan oo ceelal baana loo qodin, dhaawan baana loo qodin, wadooyin baan u baahanahay, dhakhtaraan u baahanahay, iskuulaan u baahanahay. xil yaroo wasiir nin laga dhigaa muxuu xaafadiisa ma dhaafsiisana iyo wax tari ya cid alla cid wax tari karaa ma jirto. laakiin ta wax tarkaan waxaan u arkaa in 6 gobolba wadooyin iyo dhakhtarro iyo iskuul iyo caafimaad loo wada sameeyo, dadku ay taabaaqiyo ku diraan oo yiraahdaan gobol hebel uu ka dambeeya gobolada, dhakhtar ma laha la yiraahdo, ceel ma laha, maxay ma laha ya infrastructure oo dhan in laga hadlo oo cabashooyin laga diro kuwaas muhiim ah. laakiin in waraaq yar oo caantayna oo madaxweyne wasiiradiisa soo doortay oo cid doonayay ka dhigay wasiiro cidii la soo shaqeysay ama uu arkay in hawshan kala bixi wadi karaan, dee maaha in lagu mashquulo. tawaxtarkii waxa weeye gobolka maxaa la taray, dawladda dhexe maxay qabatay, dawladda hoose maxay qabatay, war cashuurteedii maxaa lagu qabtay ba in baaq laga dira ah, war cashuurteedii iskuul ma lagu dhisay, islaanta tamaandada laga qaaday lacagta laga qaaday, war caafimaad ma lagu sameeyay, war dhakhtar ma leeyahay, war maanta dhakhtar dadkaygii la dhigo ma haysanee ilaahay cudurkan haynaga dul qaaday. haddii cudurkan uu dadka wada haleelo meel alla meel la dhiga ma lehe maxaa dadka lagu talagalay, war ha lagu xisaabtamo iskuulo, wadooyin maxay ahayday wax alla wixii asaasiga ah ha lagu xisaabtamo. haddaan kelmad ka idhaahdo baarlamaanada iyo xisbiyada laftooda caqabadaha ugu waaweyn ee wadankan haystaa waxa weeye golayaasha. taasana ma aaminsanay, waayo golayaasha baarlamaanku iyaga ahayd wixii
loo igmaday ciddii loo igmaday inay wax alla wixii cabashooyin ah ay xalliyaan lama arag dowladuhu way yimaadaan wayna tagaan laakiin kuwa meesha ku daxalaystay ee ay ahayd inay waddankan ay dee wax u qabtaan oo cabashadii kasta timaadaba wax ka qabtaan waa iyaga marka baaqyada aan jeclaan lahaa inaan arko waxaa ka mid a in la yidhaahdo hala kala dareeriyo golayaasha baarlamaanka golayaasha dowladda golaha dowladda hoose golaha deegaanka yaa si aynu u helo golayaal maskaxdoodu caafimaad qabto oo weliba idinka ah generationkiinan imika ah maskaxdoodu caafimaadka qabto waayo kuwan meesha fadhiya baarlamaanku maskaxdoodu way daxalaysatay imika waxa kaliya tay dan ka leeyihiin waa sidii ay u kororsan lahaayeen sida aragteen imikaba sidii meesha u sii fadhii lahaayeen bay ka fikirayaan war baaqa dirtaan waa inuu noqdo baaq ah war inay kala dareeriya war doorashooyinkii inoo qabta war doorashooyinkii muxuu ahaayey golayaasha inoo qabta kuwii ay xisbiyada inoo qabta yaa taasaa muhiima baaqaasaa muhiima laakiin madaxweyne ayaa wasiiro hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo isku reera ka dhigay yaa tabcaaniin waa tabcaan kaasi waa hadal tabcaan ah soo ma arag kama xanaaqin anigu wallahi inaan ka xanaaqin baaq kastoo la diro waxaa ka mas-uula muxuu ahaayey waxa dastuurkeenay ku qoran tahay waana xaq uu muxuu ahaayey muwaadinku leeyahay inuu baaq jeedin karo hadduu keligii yahay iyo haddii ay wadar tahayba laakiin yaa tabcaaniin maalinta qarannimadiina inaad buuq aada soo dhex dhigtaan taasi maaha wax la qaadan karayo marka baaqiina waa noqdaan tii hore ku noqdee golayaashoo la bedelo xisbiyadoo la bedelo waayo xisbiyadii iyo baarlamaanadiiba waxay noqdeen meelo dad gaari iska leeyihiin runta adin sheegayaa yaa saddexda xisbiba waxay noqdeen property dad iska leeyihiin markaa sidii kuwaa looga bixi lahaa oo loo heli lahaa baarlamaan cusub iyo golo degaan oo cusub iyo xisbiyo cusub waar kuwaa ka dira baaqaq oo ka dira baaqaq gobol hebel waxaa looma qaban xisbiyada laftoodu kaalintoodii way gabeen kaalintii ay waddanka ku lahaayeen waa iyaga laftoodu muxuu ahaayey dastuuriyan muxuu ahaayey wax badan bay qaban karaan kaalintoodii bulshadana way gabeen waxayna iska noqdeen dukaamo ay dadku ay dukaamo ay shakhsiyaad iska leeyihiin oo hami kaleba maba lahaba ya waxaan ku dari lahaa oo kale arrinka saami qaybsiga isna waa in xal loo helaa oo arrinkiisa la wajahaa weliba si daacad ah loo wajahaa sidii saxda ahayd waa in 6 gobol tirakoob sax ah laga helaa waxaan saa u leeyahay gobolada Somaliland ismana leeka ismana dad leeka dad iyo baaxadba way kala weyn yihiin marka in la helo tirakoobka saxa ah ee gobol waliba leeyahay ayaa muhiima haddii kale waxaa la odhanayaa marooda jeexna ha helo 40 hebelna ha helo 40 laisma leekaan karayo mana dhacayso adduunkana kama dhacdo ya marka in la waajaho oo 6 gobol iyo waddankoo dhan juhdi la geliyo sidii loo tirin lahaa waddanka tiro saxa si loo helo ayaa loo baahan yahay malaha hadalka waan ku dheereeyay kafta yarna aan ku daree dadkii caban lahaa Somaliland hadday mansab tahay iyo hadday mansab tahay iyo hadday maskab tahayba bal cilmiga ilaahay ma cabanayaan Somaliland inta cabanaysaa waa intii dhinac walba iska dhigtay xilalka iyo manfacaba marka intaasna kafan hayga ahaato waxaan jecelahay in runtii de kaftanka laftiisu waa runtoo la isu sheegaye waxaan jecelahay
hal wixii laga cabanayo in loo maro dariiqa saxda ah in wax la saxo waan jecelahay waayo anigayga kula hadlaya ayaa og dad badan oo dulman oo aan kuba jirinba dawladda shidan oonad weligaana ku arkayn maxay hayday TV ay soo fadhiistaan iyo cabasho ay muujiyaan ya kuwaasan anigu u doodayaa marka way fiican tahay in la helo Somaliland la wada leeyahay laakiin sidan aan imika arko maaha sidii lagu helayay waayo meesha ka bilowdeen baa qaldan madaxweyne kasta 5 sano uu joogo cidda uu doono ayuu keenaya war waxa inoo dana ta kale manfaca gobolada baarlamaanka oo la bedelo doorashooyin la galo war taasa manfac inoo leh kursi nin la fariisiyaa walle inaanu 5 nin hadii ama 6 nin ama 20 nin hadii isku reer laga dhigo 20 ka nin inaanay dhaafisnayn wuxuuda inaanay cidna waxba tari karin taynaan facaysa waa intaan soo sheegay golayaashan iska bedelo iyo gobolada oo la yiraahdo waxa loo qabto caafimaadkoo laga hadlo sidaan hore soo sheegay iskuuladoo laga hadlo muxuu ahaayay hantida ummadoo la ilaaliyo laga hadlo ceela laynoo qodo dhaamam laynoo qodo bariishana laynoo sameeyo war cashuurta wadanka aynu bixino aynu ku xisaabtano oo nin waliba degmadiisa toos iyo gobolkiisa toos ha ula xisaabtamo haddii kale maalin walba wuxuu maalan doonaa gobol hebel ama magaalo hebel ayaa maxay ahayday ambulance loo leeyahay ceeb weeyaan waxaasina waa wax isla xisaabtan la'aanta haddii la isla xisaabtamayo waxaasi may dhaceen magaalada dhan lagama waayeen muxuu ahaayay ambulance marka waan salaamayaa hadalka waan ku badiyay ciid mubaarakum ilaahay dambigeena ha dhaafo ilaahay cuduradan iyo aafooyinkan adduunyada ka socda hayna baalmariyo intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahay fadliga rabadaanta laylatul qadarka fadligeeda oo dhan ilaahay hayna siiyo ilaahay sanadkiisa caafimaad iyo amal wanaagsan nagu gaarsiiyo hadalkaygaas hadduu cidun dhibay u malan inuu cudbaye ha laga raali ahaado waxuma islee wanaajiyo kolle debla aadan baan ahayo sidaan u jeedo kolle waa la turjumayaa imka la muxuu jeedaa laakiin wallahi inaan wax u jeeyo Somaliland la jecel yahay wanaagsan ayaan doonayaa sidii lagu helayna maaha sidan imka la wado marka waan salaamay waa walaalkiin Axmed Yaasiin oo idin leh salaam alaykum